السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وسلامتين dhegeystayaal iyo daawadayaal maanta waxaan ka hadlanaa mobile phone-ka amba cell phone sida qolobo u taqaano su-aashu waxay tahay how your mobile phone spies you mobile phone-ku miyuu ku spy garaya miyuu information kaaga miyuu u diraa cid kale waa su-aal taasaan maanta eeganaa okay telefoonku isagoo dansan amba isagoo aan shidnadu isticmaalayn wuxuu diraya wax la yidhaha signal ayuu dirayaa wuxuuna u dirayaa towerka okay tower ba la yidhaha tan tower waa receiver okay waa meesha information signalka oo dhan receive karaynaysa so telefoonku wuxuu isticmaalayaa qabaha loo yaqaana smartphone-ka sida androga iyo apple device-ku dhammaantood kuma fiicno protecting your privacy inay protect garayaan sababtoo ah waxaad arkaysaa telefoonka oo dansan oo information diraya example baan ku siinayaa qof markuu kuu soo diro message waxaad arkaysaa telefoonka oo blink leh amba blinki sameynaya oo to live so telefoonkaas u noolaado amba u shidmo how does that happen arrintaas ay u dhacaysaa oo su-aal la isweydiinayo phone kasta oon isticmaalno si joogto ah wuxuu ugu xidhan yahay towerka ugu dhow okay phone kasta oo isticmaalana wuxuu ku xidhan yahay si joogto ah towerka ugu dhow kaas oo signal u diraya markasta telefoonku wuxuu dirayaa signal la yidhaahdo crying like wuxuu leeyahay hey my telefoonkaygii telefoon waxaan rabaa inaan kugu xidhmo towerku markaa way kasoo jawaabaysaa okay bay odhanaysaa we receive your signalkaagii waan helnay telefoon kastoo isticmaalana wuxuu leeyahay wax la yidhaa xagan maxaa ku qoran I M E oo laga soo gaabsaday individual manufacture equipment identify so waa address ku qoran amba lagu gubay device-ka oo aanan inu bedeli karin oo lagu ogaanayo telefoonkaasi nuucu yahay shirkadda samaysay waxa oo dhan baa lagu ogaanaya signalkaasi markuu u diro towerkani waxay sameynaysaa signalka markay hesho way registraynaysaa waxay leedahay telefoonkan yes wuxuu isticmaalayaa IMEgan individual manufacture equipment identify lambarkaasi waa global unique identify okay waxaa la ogaanayaa haddana sim card unique numberka
simika unique lambarka marka la ogaado haddana waxay ogaanayaan qofka lambarka haysta because waxa ku qoran magacaaga iyo hadduu doono caliya sababtoo ah lacag baad bixisaa by your account. Okay, so they collecting all data, all datadaas oo dhan bay ururinayaan. Okay, marka datada la ururiyo ay towerku dhageysato ay ururiso all your data, taasi waxay ka dhigan tahay telefoonkaaga maaha safe. Activity iyo wax kastood samaynayso waa lala soconayaa. waxaad umaleynaysiin markaan hudino telefoonku ee u shidan yahay aad guriga dhigtid. berigii hore telefoonka marka chargeka laga bixiyo amba batteriga laga saaro dee wax signal u diraya waa bilaa daba, laakiin hadda batteriga waa ku samaysan yahayba kama saari kartid. So even when you sleep signal buu dirayaa. Okay, towerku markaa waxay samaynaysaa connectionka dadkii aad la hadashay, ciddii kula soo hadashay, ciddii message ku dirtay, waxaayoo dhan waxaa la samaynayaa wax la yidhaa they recall all calls and message in history and storing and saving. halkaas markaa ayay markaa governmentigii iyo ciddii intelligenkii waxaa loo yaqaano mass surveillance work ay dabagal ku samaynayaan. Useful one day. Okay, okay, talabaad waxaa jirta wireless access point. isaguna waxa weeyaan wuxuu noqonayaa global unique identify, in lagu ogaado intii wireless eed ku xidhantay. wifi buu naqaanaa. Okay, so waxa la ogyahay airportkan kaga xidhantay locationkaad joogtay, haddana waxaa la helayaa locationkii. locationka marka la helo waxaa la ogaanayaa adresska meeshaad ka joogtid. Okay, location markaa wuxuu ka kooban yahay GPS, waa global position system ayay ka timid. Okay, marka mapkii baa la isticmaalayaa, kadibna waxaa la ogaanayaa meesha telefoonkaas yaallo yaa la ogaanayaa iyo cidda sidatana oo la yaqaana. Okay, okay, waxaan nidhi telefoonku haddii la damiyo haddii xitaa la damiyo signal ayuu u dirayaa towerka ugu dhow. Okay, information ayaan description gelin doonaa ciddii jecel inay wax badan kasii ogaato. So how do you know your phone not spying on you? saad ku ogaanaysaa inuu telefoonku aanu dabagal kugu haynin. marka ninka wax ka qoray ee la yidhaa Andrew Pani oo interception engineer ah ayaan hoos dhigaya. even haddii airplane modekaad saartid still wifi way shaqaynaysaa. Okay, Andrew iyo haddii aan isbarbarnigo Apple, Google iyo Apple. Andrew waxaa samaysaa Google aa samaysaa, Applena iOS oo iPhoneska ku jiray sameeyaan.
labaduba waa data collection. So Facebook aad gasho, WhatsApp aad gasho, waxay waa data collections. Data collection waxa la og yahay wax kasta oo telefoon ka samayso. inkastoo dadka badidu ay rabin waxay aqrinayaan oo wali jireen, laakiin qofkii dabagal lagu sameeyay wax la ogaan karaa xilligu galay, wuxuu daawaday, wuxuu commenciyay waxay oo dhan. mid kale noo muuqdo doona application-ka tan xaggan ku joojinaya. aad iyo aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.